بسم الله الرحمن الرحيم waxaan shirkan jaraa'id aan u qabanay galabta waxaan u maleynayaa muddadan waxaanu ku jirnay hawlihii laamigii isku xireeyay wadada ayl iyo dongoroyo kambanigii hore oo gacanta ku hayay oo hore uga shaqeynayay ilaa 2015 wax fiican uu qabtay oo hadda lagu keentayba aan oran karno inay keentay in ay higsato laamiga degdega inay ku hesho kambanigii gacanta hore ugu hayay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa oo Jermanka ka ah gudoomiyaha shaqadan gaadaale kambani kala yimi oo isaguna Chinese waxay yiraahdeen meeshii waxaan dhisaynaa laami waxaan shirkayaga jaraa'id aan u qabanay galabtay in labadii kambani shirkan shirba ka horeeyay aan ku qabanay degmada Dongoroyo beeshu ay ku qabatay shirkaas oo waxa ka soo baxay laba qodob labada qodob waxay ahaayeen kambanigii hore gacanta ugu hayay wadada oo ka shaqeynaya dhismaheedii waday fayskii koowaadna dhameeyay kii labaadna aanu ka sugaynay iyo kambaniga dambe oo Chinese-ka inay isu yimaadaan labada kambanina iyagu ay arintooda ka wada hadlaan maadaama uu wax yar oo hadal uu soo dhax galay kambani dul soconaya buu haayo hadda ugu horeysa shaqada kambani muddo hadda 2 sano iyo wax dheer shaqeynayay buu ahaa sidaa darteed waxaanu sugaynay inaanu labada kambani hadii ay maxaan ku yiraahdaa ay wada hadalkoodu uu ka soo baxo najita fiicanna inaanu ku raacno hadii xooga ay u baahdaan maxaan ku yiraahdaa is afgarad iyo in la wada maxaan ku yiraahdaa wixii ay la dhexdhexaadiyana inaanu gudi aan u qabanno gudigaas oo aan u diyaarinay oo aan ka mid ahay anigu rag loo qorsheeyay waxaanu sugaynay marka labadii kambani inay wada hadlaan waxa ka yimi waxaan kale oo qodobka labaad aan ku soo qaadanay wuxuu ahaa labada kambani markii hawshooda aan dhameeyno wadadaas inaysan wax carqaladana aysan u baahnayn inay tahay muqaddis loona baahan yahay maanta laamigaas sidii maxaan ku yiraahdaa gacmo furan lagu soo dhaweeyo nabadgelyana aanu ma garanaysaa ka shaqeynaa nabadgelyadii wadadaas iyo dadka ka shaqeynayay iyo sidaan u taakuleen lahayn anagana dhinacayaga sidii kambanigii horeba aan la shaqeynaynay haddana inaan la shaqeyno isaguna maadaama uu wadada iyo deegaanka iyo dadka uu yaqaano inuu kambanigaasi uu ka noqdo hormuud sidii hore ugu waday hawsha sidaasaan insha Allah saxaafadeedka ku qabanay waxa jira iska warar dambe oo hadda iska soo baxaya annagu hadda cidna ka hadlimayno jawaabna ka bixin mayno hase ahaatee waxaanu miidiyaha ka cadeynaynaa galabta kambanigii hore uga shaqeynayay wadada oo aanu aad ugu kalsoonahay kambani deegaanka gacanta ma garanaysaa ka shaqeynayay awalna uu ahaa in kambanigan qoladan Chinese-ka inay sidaas ku wada shaqeeyaan isaguna uu wakiil nooga yahay dhamaantaya qabaa'ilka degan wadada inta dariiqa uu maro anigoo ku hadlaya afkooda inuu kambanigaasi wakiil nooga yahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.